duhur wanaagsan daawadayaal haddii Soomaaliya ku sugan tahay waxa ay ku tahay xilli door ah haddii aad joogtid wadamada caalamkana waxa laga yaabaa inay ku tahay xilli kale waqti walba ay ku tahay wanaagsan ayaan ku leenahay waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo xog iyo macluumaad degdeg ah oo soo kordhay saacadii la soo dhaafay qodobada xasaasiga ah ee wararkeena aad ku daawan doontaan haddii ay buweyna uu qadaro waxa qayb ka noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ciyaaraya siyaasado aan caadi ahayn si looga hortago mashruuca aqoonsiga Somaliland ay ka heshay Israel haddaba tallaabooyinka qaraar oo ay qaadayso xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo safarada uu ku tagayo qaar ka mid ah wadamada dunida ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo waxa qayb ka noqonaya ciidanka cirka Kenya oo fuliyay duqeymo culus oo kooxda shabaab lagula bartilmaameedsaday deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose kadib markii shalay ay weerareen deegaanada Kudaa iyo sidoo kale Burgabo waxaan kula wadaagi doonaa xogta macluumaadkii ugu dambeeyay iyo khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi oo saacadii la soo dhaafay dhacay qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya ciidanka militariga Somaliland oo laayay ciidamo ka soo jeeda beelweynta jabhadda Ciise iyo ugaaska guud ee beelweynta Ciise oo soo saaray amar culus oo ka dhan ah ciidanka maamulka Somaliland waxaan kula wadaagi doonaa xogta macluumaadka wararkii ugu dambeeyay ee arintaas la xiriira qodobada kale wararkeena ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Trump oo si weyn mar kale u aflagaadeeyay jiritaanka iyo midnimada iyo qarannimada Soomaaliya intaba iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dalka oo Davos ku matalayay Soomaaliya oo indha ay ka soo hareen kadib markii waayeelka hogaamiya Mareykanka uu si xun u aflagaadeeyay Soomaaliya iyo sidoo kale shacabkeeda waxaan kula wadaagi doonaa xogta macluumaadka wararkii ugu dambeeyay ee arintaas la xiriira qodobada iyo qodobo kale wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay nagu soo bir like share muuqaalkan subscribe bogan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinku soo gudbinayno waad maasantiin daawadayaal soo dhawaada maalin wanaagsan wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaaga soo cumreeyo bisha Shacbaan oo ah Ramadaan kadib bishii ugu soonka badnaa subanaheena Muhammad nabadgeliye iyo naxariis korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin inta dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda wahagaag qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan ku bilaabaynaa saaxiibayaal soo dhawaada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ciyaaraya siyaasado aan caadi ahayn si looga taqalluso mashruuca aqoonsiga Somaliland ee xilligan si laba lixaadsanaya kaasi oo Israa'iil ay ka heshay maamulka Somaliland filla Soomaaliya ayaa qaadaysa tallaabooyin culus oo lagu badbaadin karo xaaladda dalka ee marxaladda adag ku sugan iyo mashruucan aqoonsiga Somaliland oo marba marka ka dambaysa wajiyo kala duwan iyo sidoo kale hanaan kala duwan yeelanaya macluumaadka la helaya waxay tilmaamayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligan uu la jaan qaadayo siyaasadaha wadamada caalamka iyo dawladaha ugu quwada weyn adduunka ku tagrifalka ay sameynayaan iyadoo taasi laga duulayo ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu qaadaya xilligan tallaabooyin culus oo safaro uu ugu kala bixinayo wadamada caalamka si looga hortago mashruuca aqoonsiga kaasi oo u muuqanaya xilligan in uu waji kala yeelanayo xogta macluumaadka wararkii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa tilmaamaya in filla Soomaaliya xilligan ay ku howlan tahay tallaabooyin culus si loo badbaadiyo qarannimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya iyo in gobolada waqooyi aysan ka go'in Soomaaliya inteeda kale arrintan siyaabo kala duwan ay uga hadleen dadka oo daroosa arrimaha siyaasadda Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa safar degdeg ah ku tagaya dalka Ethiopia halkaasi oo la tilmaamay in uu ka ambaqaadi doono arrinta la xiriirta in laga hortago mashruuca aqoonsiga maadaama Ethiopia ay ka mid tahay wadamada dhaca geeska Afrika ee xuduudda dheer la leh Soomaaliya isla markaana ay wadaagaan arrimo badan oo siyaasadeed sidoo kalena la doonayo in xilligan ee markaasi Ethiopia aan loo soo dhaxmarsiinin ee aqoonsi beenaadkaasi Israa'iil xilligan ay ka heshay Somaliland
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed cali isaga oo kala hadli doona xaalka guud ee soomaaliya iyo sidoo kale ee wadanka dhaca geeska africa iyo sidoo kale ee xaaladda etoobiya xilligan ee markaasi ka jirta iyo sida etoobiya xilligan ay uga baaqsan karto in ay garab istaagto aqoonsi beenaadkan somalilan ay ka heshay dowladda israa'il arrintaasi oo hadalhayntii ugu badnayd xilligan dhalisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii aqoonsi beenaadkan lagu dhawaaqay waxa uu qaadayey tallaabooyin culus oo ka dhan ah aqoonsigaasi maadaama mashruuca aqoonsiga xilligan uu noqonayo mid sii faafaya laba qorsho oo waaweynna ay ka damacsan tahay dowladda israa'il taasi oo ku aadan in ay saldhig military ka samaysato magaalada berbera iyo sidoo kale in markaasi dadka reer falastiin dhulkooda laga soo wado sidoo kalena la keeno deegaanada iyo degmooyinka maamulka somalilan arrintaasi oo si weyn ay uga duuleyso dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya macluumaadkii wararkii la xaqiijiyey ee la helayo ayaa tibaaxaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud safarka uu ku tegayo magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya uu markaa uga qayb galayo bandhiga ciidanka cirka ee etoobiya arrintan oo dadku siyaabo kala duwan ay u micneeyeen laakiin waxaa la sheegay in villa soomaaliya xilligan ay ugu gogol xaarayso ka hortaga arrinta la xiriirta aqoonsi beenaadka arrintaasi oo muujinaysa in dowladda keliya ee xilligan laga soo mari karo ee soomaaliya ay tahay dowladda ethoobiya taasi oo markaasi fududaysay in xubno ka socda israa'il gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda uu booqasho ku tago magaalada hargeysa ee maamulka somalilan arrintaasi oo dhalisay buuqi ugu xooganaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale tegi doona magaalada new york ee dalka maraykanka halkaasi oo uu kaga qaybgeli doono kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo la filayo in uu shir guddoomiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyadoo lagu soo hadal qaadi doono qodobo badan oo ay ka mid tahay xadgudubka ee soomaaliya ay kula kacday ee markaasi israa'il oo doonaysa in xilligan qayb ka mid ah soomaaliya ay aqoonsato iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobayna ay cambaareeyeen arrinta la xiriirta israa'il iyo sidoo kale ku-takrifilka xilligan ay samaynayso laakiin dowladda israa'il ayaa sheegtay in aysan arrintan ka waaban doonin iyadoo aqoonsiga somalilan ee xilligan markaasi u noqday mashruuc markaasi wejiyo cusub yeelanaya oo laga cabsi qabo xitaa in uu ku soo biiro madaxweynaha waayeelka ah ee hogaamiya ee dalka maraykanka Donald J Trump oo markaasi fagaarayaasha caalamka si weyn ugu aflagaadeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed haddaba wuxuu ku soo kordho oo warara safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo siyaasadaha xilligan ay ciyaarayso villa Soomaaliya waxaan kugula wadaagi doonaa wararkeena iyo warbixinadeena soo socda haddii Allah ugu dilo uu raali ka noqdo markana ciidanka cirka ee dalka Kenya ayaa waxa ay burburiyeen saldhigyo military oo markaasi kooxda shabaab ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose saacadii la soo dhaafay duqeymo aad u culus oo diyaaradaha dagaalka ee markaasi Kenya ay fulinayeen ayaa ka dhacay jasiiradda Kudaa iyo meelo badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose oo la rumaysan yahay in ay ku dhumaalaysanayaan maleeshiyaadka kooxda shabaab macluumaadka iyo wararka la xaqiijiyay ee la helayo ayaa tibaaxaya in ciidanka Kenya duqeymo culus ay ka geysteen diyaaradahooda qaybo badan oo ka mid ah goobaha markaasi shalay dagaaladu ay ka dhaceen waxaana ciidanka Kenya ay iskaga baxeen kal hore saldhigyo military oo ay ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo Buurgaabo iyo sidoo kale jasiiradda la yiraahdo Kudaa halkaasi oo weerar culus ay ku qaadeen maleeshiyaadka kooxda shabaab shalay isla markaasina khasaaro xoog leh oo ka dhashay laakiin kooxda shabaab waxa la tilmaamay in xalay 10 loogu dhigay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay weerareen diyaaradaha dagaalka ee Kenya kuwaasi oo duqeeyay goobo bartilmaameed ahaa isla markaana la aaminsan yahay in ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka kooxda shabaab macluumaadka iyo wararka la helayo ayaa waxa ay xaqiijinayaan in markaasi la dilay xubno badan oo ka mid ah horjoogayaasha kooxda shabaab inkastoo dowladda Kenya wax faahfaahina aysan ka bixin duqeymahaasi laakiin waxa la tilmaamay in duqeymaha lala bartilmaameedsaday goobo muhiim u ahaa maleeshiyaadka kooxda shabaab oo ka tirsan gobolka markaasi Jubbada Hoose oo dhaqdhaqaaqyada ugu cuslaa xilligan ay ka soconayaan
macluumaadka iyo wararka la xaqiijiyey ee la helayo ayaa waxa ay tibaaxayaan in xilligan dhaqdhaqaaqyadu ay yihiin kuwa markaasi aad u adag ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulka Jubbaland oo isgarabsanaya ayaa howlgallo ka sameeyay saacadii la soo dhaafay deegaanadii ay weerarada ka dhaceen iyadoo ciidanku ay tilmaameen in maleeshiyaadka kooxda shabaab meedadkooda ay daadsan yihiin meelo badan oo ka mid ah gobolka markaasi Jubbada Hoose ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo deegaan doorashadiisu ay tahay deegaanada iyo degmooyinka gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu hambalyo culus u diray ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubbaland oo uu sheegay in ay xilligan hayaan howlo culus oo markaasi lagu badbaadinayo qaranka Soomaaliyeed isla markaasina xilligan markaa lagu barataarayo howlaha la xiriira dhinaca amniga ee ay wadaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa markaasi maamulka Jubbaland ee shalay cashirka u dhigay maleeshiyaadka kooxda shabaab duqeymaha qaarkood waxaa la tilmaamay in ay dad shacab waxyeello ka soo gaartay inkastoo aan la xaqiijin karin sidoo kalena aan la haynin warar ka madax bannaan kuwa Kenya haddana waxaa markaasi imaanaya xilligan in duqeymaha markaa ay ahaayeen kuwa looga jawaabayay dagaalkii cuslaa ee shalay maleeshiyaadka kooxda shabaab ay ku qaadeen deegaanada aan kor ku soo cusnay wixii ku soo kordho oo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah uu idmo ciidanka militariga Somaliland ayaa laayay ciidamo ka soo jeeda jabhadda beelweynta Ciise iyadoo ugaaska guud ee beelweynta Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibraahimna uu markaa amar ku bixiyay in la qaado weerar culus oo ka dhan ah ciidanka militariga Somaliland dagaal culus ayaa waxa uu galinkii dambe ee shalay ka dhacay meelo ka mid ah gobolka Salal gaar ahaan duleedka deegaanka lagu magacaabo Saylac oo ka tirsan gobolkaasi waxaana la sheegay in ciidanka militariga Somaliland ay weerareen fariisin ay lahaayeen markaasi ciidanka jabhadda beelweynta Ciise waxaana la tilmaamay in weerarka oo ahaa mid aad u culus lagu laayay xubno badan oo ka tirsan jabhadda beelweynta Ciise goobtii saldhigga military ahayd oo ay ku sugnaayeen ciidanka jabhadda ayay la wareegeen ciidanka militariga Somaliland waxaana lagu soo waramayaa in xilligan markaasi halka ay uga carareen ciidanka jabhadda beelweynta Ciise hub aad u fara badan oo ciidanka militariga Somaliland ay markaasi gacanta ku dhigeen dagaalka ayaa bilowday kadib markii la tilmaamay in laba qof oo markaasi reer guura ah oo rag ah ay gacanta ku dhigeen ciidanka jabhadda beelweynta Ciise sidoo kalena ay markaasi qudha ka jareen sida la tilmaamay arintaasi oo si weyn ay uga caroodeen beelweynta Gadabuursi isla markaana ay dhalisay in ay weerar qaadaan ciidanka markaasi militariga Somaliland iyaga oo doonaya in jabhadda beelweynta Ciise ay ka saaraan deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolka Salal ugaaska guud ee beelweynta Ciise oo xalay kulamo kala duwan la yeeshay saraakiisha ciidanka jabhadda beelweynta Ciise ayaa amar ku bixiyay in la qaado tallaabooyin culus oo ka dhan ah maamulka markaasi Somaliland ee uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Ciro iyo ciidanka militariga maamulkaasi iyadoo jabhadda beelweynta Ciise xilligan ay isku diyaariyeen dagaal ka dhan ah ciidanka militariga Somaliland maadaama xilligan ay soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo dhinaca ciidanka ah xaalado kacsanaan ah iyo xiisado dagaal ayaa laga soo sheegayaa duleedka magaalada Saylac ee gobolka Salal halkaasi oo saacadii la soo dhaafay ay ku wada dagaalameen ciidanka militariga Somaliland iyo sidoo kale ciidanka jabhadda beelweynta Ciise dagaaladii dhacay ayaa waxa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka waxyeelada badan ay soo gaartay waxa la tilmaamay in ay ahaayeen ciidanka jabhadda beelweynta Ciise kadib markii weerar gaadmo ah ay ku qaadeen ciidanka militariga Somaliland oo wata gaadiidka dagaalka qoryaha darandooriga u dhaca iyo hubka culus waxaana la sheegay in halkaasi lagu laayay askar badan oo ka tirsan jabhadda beelweynta Ciise inkastoo tira ahaan aan la xaqiijin laakiin waxa lagu soo waramayaa in ciidanka Somaliland ay laayeen xubno badan oo kamid ah jabhadda walow ciidanka Somaliland ay xaqiijiyeen in laba kamid ah jabhadda goobta ay ku dileen sida militariga Somaliland war ka soo baxay lagu shaaciyay lama oga khasaaraha rasmiga ah laakiin wali waxa soconaya dhaqdhaqaaqyo culus waxaana laga cabsi qabaa in dagaalo rogaal celis ah ay ka dhacaan deegaanada iyo degmooyinka maamulka markaasi Somaliland xilligan markaa gobolka Salal ka tirsan oo isku hayaan jabhadda beelweynta Ciise iyo sidoo kale ciidanka militariga Somaliland halkaasi markaasi weerarka ku qaaday galinkii dambe ee shalay xaaladuna waa ay ka sii daraysaa marba marka ka dambaysa wuxuu ku soo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah uu dilo raali ka noqdo markana Trump ayaa si weyn mar kale u aflagaadeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed iyo wadankeena intaba
iyadoo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka soomaaliya uu markaasi dhex fadhiyo goobta uu markaasi ku aflagaadaynayo waayeelka hogaamiya dalka maraykanka. magaalada Davos ee ka tirsan dalka Switzerland kulan weyne ka dhacayay ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka maraykanka Donald J Trump waxaana aflagaada cad uu u geystay mar kale dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka Saalax Axmed Jaamac oo goobta ku sugan ayay muuqaalada iyo sidoo kale sawirada soo qabanayeen isaga oo markaa dhabanada haysta sidoo kalena eegaya aflagaadooyinka ee markaasi waayeelka hogaamiye maraykanka ee Donald Trump la yiraahdo maalmihii dambe u caadaystay in uu markaasi Soomaaliya u geysto. waxa uu ku tilmaamay Soomaaliya in ay tahay wadan aan lahayn kala dambeyn, dawlad aan lahayn, بوليس أنا لهين سدوا كلنا أنا لهين military intaasi oo aad moodid in Trump ay meel ugu xariiqan tahay mar walba oo Soomaaliya oo soo hadal qaadana markaasi uu doonayo in intaasi uu ku aflagaadeeyo. laakiin Soomaaliya oo dal jira ah ayaa xilligan markaa muujinaya walaac dawladda Mareykanka laga qabo taasi oo ku aadan in mar kale markaasi dulaan ay ku soo qaado Soomaaliya maadaama madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump uu xilligan caadaystay in uu aflagaadeeyo Soomaaliya. ra'iisul wasaare markaasi Saalax Axmed Jaamac ayaanan qaadin wax tallaabo ah sida la tilmaamay iyadoo xubno badan oo ka tirsan markaasi Somaliland ay ku sugnaayeen shirkana ay ka qayb galayeen. madaxweynaha dalka waa madaxweynaha maamulka Somaliland ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Ciro ayaa qayb ka ah xubnaha xilligan ku sugan shirkan Davos ka dhacaya kaasi oo markaa maalmo ka hor ka soo muuqday markaasi dalka Switzerland sidoo kalena isku soo sawiray diyaarad nooca helicopterka la yiraahdo oo ka diiwaan gashan dalkaasi sidoo kalena lagu arkayay in uu markaa ka qayb galayo shirkan. waxaa la filayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump sida la tilmaamay in uu la kulmo madaxweynaha maamulka jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland iyadoo ay soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo ka dhan ah ciidanka markaasi waa dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo ka dhan ah aqoonsi beenaadka Somaliland ay ka heshay Israa'iil. Donald Trump ayaa mar walba waxa uu soo hadal qaadaa dadka Soomaaliyeed isaga oo ku tilmaama in ay yihiin dad aanan ahayn wax jira isla markaana markaa kaliya yaqaana burcadbadeednimada iyo musuqmaasuqa sida uu tilmaamay isagoo muddooyinkii ugu dambeeyay aad u hadal hayay dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda intaba isaga oo markaa aflagaadooyin kala duwan u geysanayay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ka mid ah ragga ugu cunsuriyeysan kuwa hogaamiya wadamada caalamka. wixii ku soo kordho oo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo waraale ka noqdo. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir like share muuqaalkan subscribe bogan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga helo wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinku soo gudbinayno. waad mahadsantihiin daawadayaal soo dhawaada.